السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا فيديو بين مانتا وحن قعدت كوايا بوق أدو عتشيبة أو قري أستاذ عبد الكريم أسمان جامع بوق حال هذا حلكس مركي كوبال يورسن أركي بوقن يميل عيسى وحنودي بوق شعيل بس وحا إيجا صور بحي بوقا أفكي أهري الريفيو كبحيا أما قداشا وحكيرا كاسنا والشيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون وحنودي qoraal wuxuu macno yeeshaa marka uu qoraal cilmi yahay buugganna wuxuu qiimo leeyahay haddii uu luqad rasmi ku qoran yahay qaab cilmiyeedna u qoran yahay marka waxaan u mahad celinayaa oo bogaadinayaa cabdikariin inuu qoray buugga xilkas oo ah buug cilmiyeed afkeena ku qoran sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun haddii uu sheekh mustafa wax ka yiri buuggan waxa uu ku qasban yahay in la akhriyo ustaadkan aad baan u mahad celinaa buuggan jildiga ugu horeeya waxa ku qoran jumlad aad cajiib oo ah ku hogaami naftaada ehelkaaga iyo bulshadaadaba aqoon iyo xikmad buuggan wuxuu ka kooban yahay 221 page ahna inta loogu talagalay in la akhriyo buuggan wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood qaybta koowaad waxa weyn waa ujeedo qaybta labaad waxa weyn waxa jecesha iyo qaybta saddexaad oo ah joogtiin buuggan kuma koobna oo kaliya hal qof fikradii buuggan waxa la isku soo ururiyay fikrado farabadan khibrado iyo buugaag farabadan taasoo dhaqankeena iyo afkeena hooyana si fiican loogu turjumay si aynu u fahmi karno ustaadka aad ayuu mahad celinaa halka aad ka heli karsan waxaan soo dhigi doonaa commentiga ama descriptionka qaybta koowaad ee buuggani waa ujeedo casharka koowaad inuu ka baranayno buuggan waxa weeyaan haddii aadan lahayn hadaf ficiladaadu waxay noqon doonaan bakhtiyaan nasiib ficilada aad qaadaysana ugu dambaysta waxay noqon doonaan mid ah switching cost buuggan wuxuu ku macneeyay haddii adigoo ficil qabanaya aad ficil kale aad ku dhex qabato ama hawl kale aad ku dhex qabato waxa aad luminaysaa tamartii aad ku qaban lahayd ficilkii hore iyo kan dambe ee aad qaban doontaba casharka labaad haddii qalbigu uu yahay jiheeyaha naftaada qiyamkuna waa qoraalka jiheeya macnaheedu maxay tahay qalbigu waa goolkaaga habraacuna waa valuegaaga waa qiyamkii waa caadooyinkaaga waa sharciyadii aad adigu samaysatay casharka saddexaad haddii aadan yeelan hadaf adiga kuu gaara oo ah kii adiga ku jihaynayay waxaad yeelan doontaa wax uu buuggiina bari doono buuggu waxaa jirta experiment ama su-aalooyin weydiiyey dad meel ku xaraysnaa gabadh neerseena weydiisay dadkii meesha ku xaraysnaa waa dad da-a ay u dhow yahay waqtigii ay dhiman rabeen dadka badankooduna waxaa jirtay 5 qoomameyn oo ay ka sinaayeen dhammaantood qoomameynta koobaad waa maxay waxaan jeclaan lahaa inaan muhiimadda siin waxa dadka kale ay aniga leeyihiin qoomameynta labaad waxaan jeclaan lahaa inaan waqti ka yar aan shaqeeyo waqtigan shaqeeyay ee aan ku soo gaaray ilaa 65 ka bacdina gaban uu igu yimid qoomameynta saddexaad inaan yeesho geesinimo aan ku cabiri karayo dareenka aan anigu dareemayo qoomameynta afraad joogteynta saaxiibada fiican qoomameynta shanaad naftayda inaan farxad geliyo markaad hadaf yeelatid waxaad u baahan tahay waxa la yiraahdo caado iyo dabeecaddu waa laba shay oo kala duwan buuggan ayaan ka bartay aniga laftirkeyga waxaan moodi jiray caadada iyo dabeecaddu inay isku soo samaysmaan maya caadadu waa ku celcelinta shay kaas ugu dambaysta isku bedela dabeecad ama habdhaqan haddaba caadada qaabkeeda u dhacdaa ama qaabkeeda u samaysantaa buuggu wuxuuna baray waxa la yiraahdo habit loop qaabka u samaysato caadadu iyo sida ay ku soo noqoto caadada aad leedahay maalinle waxay ka bilaabmato waxa la yiraahdo kiciyaashaadaasi waxa ay sii maraan meel la yiraahdo neuropathways ama dariiqaasina wuxuu sameeyaa caadadaasina waxa ay ku siisaa abaalmarin haddaba caadada inaad joogtisid ku celiso waxa kugu qasba waxa la yiraahdo dopamine casharka shanaad ogow dopamine-ku ama dareenka farxadeed ee abaalmarinta ku siinaya ogow inuu si walba uu iman doono haddaad qabato shaqo ama caado adiga kuu muhiim ama tu aan muhiim ku ahayn marka adiga ayaa go'aansanaya caadada aad yeelanayso ogowna abaalmarintu inay si walba ay soo deynayso maskaxda casharka lixaad haddii aad u nooshahay si aan abaabulnayn waxaad u nooshahay inaad khasaartid buuggu waxa uu muhiimadda saarayaa uu adigana kugu dhiirigelinayaa in aad wixii organize garaysid in aad wixii kala maaraysid shaqooyinka aad qabanayso si caado wanaagsan ay uga dhalato taasoo kaa caawinaysa hadafkaaga haddaba wuxuu barayaa buuggu 4 sanduuq ood ku kala qaybin karayso waxaad qabanayso maalin walba shaxda koowaad waxaad ku qoraysaa wax degdega balse aan muhiim ahayn shaxda labaad waxaad ku qoraysaa wax degdega balse muhiima shaxda saddexaad waxaad ku qoraysaa wax muhiima balse aan degdeg ahayn shaxda afraad waxaad ku qoraysaa wax aan muhiim ahayn
degdegna aan ahayn markaad saa u kala shaandhaysid waxyaalaha aad qabanayso wuxuu ku leeyahay sharcigan isticmaal sequence samee wixii kala horreysay maxaa muhiima horreysay maxaa degdega horreysay ka bacdina u imow maxaa muhiim balse aan degdeg ahayn marka labada shaxood kala horreysay ay kulita kuwa waa maxay waxa muhiimka ah degdegana ah waa first second waxa imanaya waxa muhiimka balse aan degdeg ahayn qaybta labaad boogan aynu nimaadno qaybta labaad waxa weyn waxaad jeceshahay ama passion waxaad ku tahay casharka koobaad qaybta labaad dunidan fursadaha yaala iyo ka ficilin fiican saad u yeelatid wuxuu ku leeyahay waa inaad ogaataa adigu waxaad ku fiican tahay adigu waxaad jeceshahay casharka labaad baro naftaada qaab nooceeb hadaba nafta loo bartaa haddaadan adigu aqoon naftaada wuxuu ku wadaagayaa tekniikyo kala duwan oo kaa caawinaya saad naftaada u baratid 360 assignment report muxuu yahay waa report kaa caawinaya adigana kuu sheegi karaya waxaad ku fiican tahay haddaba waa sidii waa in aad heshaa buu ku leeyahay dad adiga kula shaqeeya ama dad aad garanayso oo adigana ku garanaya ugu yaraan 2 sano kuwaasoo kuu qori karaya ama inay qoraan waliba qoraala ku odhanaya waxaad ku fiican tahay cabdi wuxuu ku fiican yahay waxaan wuxuu ku xun yahay waxaan marka reportigaas markaad heshid waxaad ogaanaysaa haddaadan adigu soqon waxyaalaad ku fiican tahay iyo waxyaalaad ku xun tahay qaabka labaad aad ku baran kartaa naftaada waxa weeye SWOT analyze adaa iska sameynaya adaa is analyze gareynaya adaa is oran intaad fadhiisato maxaan ku fiicanahay maxaan ku xumay casharka saddexaad ee cutubka labaad dabaal ma baran kartid ilaa adigu isku tijaabisid wax walba oo barato noloshan haddii aadan adigu isku tijaabin baranaysid shaygaas mana ogaan karsid waxa ka dhalanaya marka buug walba akhriso ama noloshaada wax walba oo barato isku day inaad tijaabisid casharka afraad go'aan qaadashadu waxay keentaa stress marka aad wax aragtida u baahan tahay inaad sameysid samee ku dhaqaaq go'aan qaado waa dib u dhigashada aad go'aanka aad ka qaadan lahayd waxay kugu abuuraysaa stress fara badan marka go'aanka hore u qaado casharka shanaad saameyn yeelo markaad ogaatid waxaad jeceshahay eed ku fiican tahay waa inaad yeelataa impact waa inaad noloshan saameyn aad ku yeelataa oo noqon qof iska joogo haddaba sektarro kala duwan ayaa jira kuwaasoo fursado fara badan ay ka banaayeen sida waxbarashada caafimaadka biyaha beeraha kaabayaasha dhaqaalaha maamulista alifaad iyo hal abuur invention iyo innovation alifaad iyo hal abuur kuma xayeen qaab noocyo laga faa'iideysan karaya fursadda markaan soo helo iyo waxaan ku fiican markaan ogaado sektarkaad soo ogaatay haddaba waxaa jira in laga yaabaa sektarkaas inuu yahay mid cusub ama inuusan cusbayn oo aad isticmaali karso waxa la yiraahdo hal abuurid alifaad maxay tahay alifaad waxa weeye shaygani wuu cusub yahay adaana ah qofka ugu horeeya ee fursaddan ka faa'iideysanaya soo saaraya ma yare waxaa laga yaabaa inuu shaygani jiro oo hal abuur ku sameynayso creative-nimadaada abaad isticmaalaysaa odanaysaa shaygan ama sektarkan jira sidaan uga faa'iideysan karayaa waxna ku dhex oran karaya creative-nimo taas ayaan la yiraahdaa hal abuurid marka labadu waxay ka caawinayaan waxaad ku fiican tahay markaad ogaatid inaad saameyn ku yeelatid fursadna aad ka dhex samaysan kartid qaybta saddexaad ee boogan waa joogtayn marka aad nolosha ujeedo ka leedahay ood garanaysid waxaad ku fiican tahay way kuu fududaanaysaa inaad adkaysatid jumladan waxaanu si fiican uga fahmaynaa haddii aadan lahayn ujeedo aadan garanayn waxaad ku fiican tahay waxna ma joogtayn karaysid waxna uma adkaysan karaysid adkaysigu wuxuu imaadaa marka aad garanaysid waxa aad rabto iyo waxa aad ku fiican tahay qaybta saddexaad ee boogani waxa uu sidoo kale aad u kala dhigdhigayaa sida hogaamin fiican loo yeesho iyo hogaamintu sida ay ku dhalato casharka koowaad qaybta saddexaad xamilaadda iyo kasoo kabashadu waa waxa ku horseedi kara inaad guulaysato inaad wax u xamashid oo wixii adkaysigeeda yeelatid iyo in aad kasoo kabatid marka uu daaco kusoo gaadho waxay ku horseedi kartaa buu ku leeyahay boogani guusha haddaadan labadan lahayn way adkaanaysaa tusaale ahaan kubad marka aad gidaar ku dhufato kubaddii way leexsantaa macnaha way isku soo yara noqotaa hog bay yeelataa balse marka ay gidaarkii kasoo laabato sideedii hore kusoo noqotaa adiguna waa saas oo kale mar walba waxaad la kulmi doontaa gidaar marka xamilaad iyo adkaysiba waad u baahan tahay si mataqaana aad u guulaysatid casharka labaad wuxuu hadda inoo gudageli doonaa hogaaminta iyo hogaamintu sida ku abuuranto iyo sida hogaamin fiican loo yeesho adiga ayay ku bilaabantaa hogaamintu adigu naftaada doodan hogaamin cid kale ma hogaamin karaysid hogaamiye tayeysan suu qofku u noqdo wuxuu u baahan yahay 5 wuxuu u baahan yahay challenge adag inuu dhibaatooyin uu la kulmay 2 inuu leeyahay hibo 3 inuu ku nool yahay deegaan ku habboon 4 carbin fiican inuu helo qofkaasi iyo 5 khibrad casharka labaad ee hogaaminta khibrad inaad yeelato noqoto hogaamiye khibrad fiican leh waxaad u baahan tahay aqoon iyo waayo aragnimo casharka xiga
hadda wuxuu barayaa hogaamiyaha tayeysan calaamadaha lagu garto. kow waa qof indhabeergarada, waa qof xasiloon, waa qof dadka ku xeeran u sahla inay isaga falcelin siiyaan oo aan laga cabsan. waayo hogaamiyaha laga cabsado badanaa dadku falcelin kama bixiyaan ama feedback ma siiyaan maadaama ay ka cabsanayaan. wuxuu og yahay hogaamiyaha tayeysan feedbacku inuu ka dhigi karo qof wanaagsan oo isaga u sahli karaya inuu sii ahaado qof hogaamiyihii ku habboonaa ee dadka hogaamin karayay. waxaa jirta jumlad aad u cajiiba uu qofka hogaamiyahana u xasuusinay: guusha degdega ihi waxay abuurtaa isqiimeyn la'aan. maalinta aad guuleysatood aragtid inaad hogaaminaysid waxay kugu abuuraysaa inaadan isqiimin. marka mar walba guul gaadhid dib isku fiiri, fariiso oo isweydii maxaa kaa caawiyay inaad guuleysatid ama hogaamin noocan oo tayeysan inaad dadka ku hogaamisid. kabacdin analyze garee. boogan xilkas waxaan haystaa markiisii koobaad inuu yahay boog iska jacayla, balse runtii waxaa ku duuban aqoon aad u fiican. aan isleeyahayna waa boog u baahan in mar labaad la akhriyo, mar saddexaad la akhriyo. haddaba boogan hore u akhrisay wixii aad ka baratay fadlan commentiga iyada noogu reeb si aan adiga laftarkaaga kaaga faa'iidaysano. haddii jiro boog aad xiisaynaysaan si aan usoo koobnana bal commentiga nagula wadaag. biidnillah videoda xiga ayaan kasoo samayn doonaa soo koobid. waa aniga caafimaad badan iyo cibaado soo ban ayaan kaaga tegaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.